dadka reer Iran waxay u dareeri doonaan doorashada madaxweyne Brito tan iyo doorashadii la soo dhaafay ee 2017 xaaladda amni ee dalka way ka sii dareysay BBC-da ayaa la kulantay codbixiyaal aad uga niyad xun hanaanka doorashada shanin ayaa markan u tartamaya xilka ugu sarreeya dalka iyadoo laba musharax oo kale ay ka laabteen tartanka dhammaantood inta kale waxaa ansixiyay golaha ilaalinta kacaanka ee awoodda badan ee Iran warbixintan waxaa inoo haysa Iimaan Cabdullaahi wadooyinka magaalooyinka Iran astaan doorasho oo xamaasad leh kama muuqato marka laga reebo boorarkan oo inta badan musharaxa ugu weyn ee doorashada Ibrahim Raisi xaakimkii hore oo haddana ah madaxa garsoorka Master Raisi waxaa moodaa inuu yahay musharaxa ugu cadcad ee siyaasadda Iran dhammaan musharaxiinta kale ayaa laga mamnuucay in ay ka qayb qaataan aragti ahaan anigu waxaan qabaa in tartanku uu ahaado mid furan isla markaana ay musharaxiin badan ka soo qayb geli karaan baad xog ururintu waxay saadaalinaysaa in tiradani ay ka yaraan doonto doorashooyinkii hore waxaa lagu baaqayaa in la qaadaco doorashada waayo waxaa jira dhowr sababood marka hore dhaqaalaha iyo dib u soo celinta cunaqabadaynta Mareykanka musuqmaasuqa baahsan iyo maamul xumada ayaa curyaamiyay dhaqaalaha wax qorshe ah oo mustaqbalka ah ma sameyno wixii maalinta ka dambeeyay marka loo eego xaaladda dhaqaalaha midda labaad ayaa ah dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda boqolaal dibadbaxyayaal ah ayaa lagu dilay banaanbaxyadii 2017 iyo 2019 hooyooyinkood ayaa ku baaqaya in la qadaco doorashada qof kasta oo codeeya wuxuu khiyaaneynayaa kuwa la dilay iyo hooyooyinkooda midda saddexaad ayaa ah hoos u ridistii diyaaradda Ukraine ee ilaalada gacanka Iran ay soo rideen 2020 176 rakaab oo ay ku jiraan caruur ayaa dhintay waxay ahayd dembi aan la rumaysan karin welina waa uu yahay 17 bilood kadib sheekadani weli waxa ay ka dhex jirtaa dadka reer Iran ee ku sugan adduunka mana ilaabi karaan saddex maalmood kadib Iran ayaa ugu dambeyntii aqbashay mas'uuliyadda laakiin si sax ah looma baarin doorashada noocan oo kale ah kaliya waxaa safka galaya qaar dambiilayaal ah haddii aad mid iyaga ka mida dooratidna waxaad gacan siinaysaa hogaamiyaha sare ee Iran inuu sameeyo dilal badan falaaqeynayaasha ayaa ka baaqaya in dhammaan laamaha awoodda leh ee Iran ee si dhaqso ah u xukumi doonaan waxa ay ka walwal qabaan in xaalad adag ay geli doonaan dadka Iran dadka dhaleeceynaya ayaa sheegaya in dimuqraadiyadda Iran ay isu bedelayso mid gebigeedaba ah islaami oo kala talis ah